soo dhawaada walaalayaal mar kale iyo xiisadeenii afraad oo aynu ku qaadan doono barnaamijkan loo yaqaano yow boss. marka barnaamijkan aynu ku maamulayno ganacsigeena iyo xisaabaadkeena intaba ayaynu ku qaadan doonaa xiisadan, waana xiisadeenii afraad. marka xiisadan waxaynu ku sharaxi doonaa khaanadan product. sidoo kale waxaynu ku baran doonaa sida product loo sameeyo ama alaab loo soo gelinayo systemkan. haddaan idiin soo dhaweeyo productiga sida loo soo gelinayo iyo waxaynu ku qaadan doonaa iyo categoryga waxaa loo yaqaanaa category. haddaad maqasho waa shayadu noocyada ay leeyihiin. category waa tusaale ahaan caanaha oo kale waa qeyb ka mid a cuntada. marka categoryo waaweyn aynu sameyno, tusaale ahaan categorygaasi waa categoryga wixii cuntaa, cabitaanada, dharka, electroniga, saasoo kale category baad sameynaysaa, qeybaad u kala sameynaysaa alaabahaagii si hadhow toole khaanad walba wixii aad ku gurtay aad u fahmi karto. ama khaanad marfeshka tusaale ahaan markaad dukaan furato khaanad walba waxbaad gelinaysaa saad wada ogtihiin, oo khaanad waxaad gelinaysaa sharaabada, khaanad caanaha, khaanad saasoo kale. marka khaanadaynu sameynaa haddaba. marka khaanada si aynu sameyno waxaynu taabanaa talaabada koowaad, halkan category ay ku qoran tahay ayaa taabanaysaa si aynu ganacsigeena ama meheradeena ama companygeena aynugu sameyno khaanado. marka category baynu soo furaynaa. haddaba category imika wax categorya ma haysano. halkan saad arkayso no category available in table baa lagu leeyahy. halkan wax categorya oo ku shaqeynaya ama ku yaalaa ma jiro. marka maxaynu sameynaa add category baynu taabanaa halkay ku qoran tahay. categoryga haddaba marka aad soo furto bogan yar baa kuu soo baxaya. waxaa markaba lagu weydiinayaa categoryga magaciisa ama qeybtan magaceedu maxay tahay. tusaale ahaan cabitaanadan u bixinayo cabitaano. nooc waxaad doontaad categoryadaada ka dhigan kartaa, laakiin inaad fahantaa muhiima. category codeka number 1 tirooyin baad u kala sameynaysaa categoryada. waa categorygii koowaad maadaamuu yahay number 1 baan ula baxaya codeka. sharaxaad ka bixi categorygan ama qeybtan khaanadan waxa la gelin karaa wixii cabitaano ah ama la cabayo. markaa saasoo kale sharaxaad inaad uga bixinaysaa. intaa kadib maxaad sameynaysaa safe baad leeday. saad arkayso hadda waxaynu sameynay categoryga loo yaqaano cabitaano. codeka categoryga waa number 1. marka codeka mar walba waxaad doontaad ka dhigan kartaa, laakiin si aad u fahanto tiradii categoryga codekiisii code inaad iskala baxda waa iska fiicantahay. marka khaanadan waxaa la gelinaya waa sharaxaadii categoryga. marka hal category baynu hadda haysanaa. intaad doontaad sameyn kartaayo categorya. tusaale ahaan cuntooyinka khaanadaha bayn sameynaa. tusaale ahaan cuntooyin khaanada magaceedu waa maxay? cuntooyin. categoryga codeka number 2 bayn ka dhiganaa. khaanadan waxaa la gelin karaa wixii cuntooyina. saasoo kale aad u gelinaysaa. kadibna maxaad leedahay safe baad leedahay. categorygaasna sidaas ayaynu ku safe garaysanay. marka laba category baan hadda sameysanay, khaanad cuntooyina iyo category ama khaanad ama qeyb waxaan sameysanay cuntooyina iyo qeyb cabitaana. marka maxaynu sameynaa haddaba bal aan idin tuso. imika khaanada waynu sameysanay ama categoryga waynu sameysanay. haddaba bal alaabbaan soo gelinaya haddaba systemkeeni. alaabta tusaale ahaan marka aad soo iibsato meherada ama companygaaga alaab marka aad usoo iibso waxaa muhiim ah inaad soo geliso systemka. marka halkaasaad taabanaysaa markaad alaab soo iibsato. tusaale ahaan aad safar keento ama alaabaha aad haysa ka mid a. tusaale ahaan hudheelka oo kale safar ma gala inta badan, oo alaabihiisan cuntooyinkan unba soo gelinaya mid walba qiimaheeda iyo waxa ay tahay. laakiin haddii aad bakhaar haysato kale tusaale ahaan oo aad safar keento, alaabahaad keentay mid walba qiimihiisaad soo gelinaysaa iyo inta xaba ee aad ka hayso, si hadhow toole kugu fududaato alaabta kuu taalo kaydka iyo alaabta qiimayowgooda iyo intaad ka faa'iiday waxoo dhanba si ay hadhow kugu fududaadaan. marka waxaad sameynaysaa alaabtiin soo gelina. hadda add product bayn taabana. haddaba productigii marka aynu taabano halkan waxaad ku arkaysaa khaanad weyn oo ay ku taalo ama formkan weyn baa inoo soo baxaya oo ay ku taalo waxyaalo kala duwan laynagu weydiinayo. tusaale ahaan product name baad halkaa ku arkaysaa. waa magaca shayga magaca aad u bixinayso, shayga magaciisa weeyaan. halkani waxa weeyaan waa unitka
pieces baad iska dooranaysaa uma baahnid. waxaad halkan product nameka tusaale ahaan waxaan ka dhigayaa caano oo kale, caanaan ka dhigayaa product nameka. haddaba halkan maxaad ka dhigaysaa sq maxay tahay? sq macnaheedu waxa weeyaan waa lambarka shayga ama productiga dabada kaga yaala. tusaale ahaan item alaab walba oo lasoo sameeyo oo warshadi soo sameyso waxay leedahay wax loo yaqaano barcode, wax loo yaqaanay leedahay. marka barcode-ka dabada codeka yar ama lambarka yar ee liidada yar le ee ku yaala ayaa sq loo yaqaanaa. marka lambarka yar baad gelinaysaa, waa ka halkan kaaga muuqda. marka markaad lambarka yar geliso, tusaale ahaan waxaan ka dhiganayaa tusaale ahaan 1 2 3 4 5 6 ayaan ka dhiganayaa. shaygaad iibinaysaa haddaanu lahayn sq code ama barcode haddaanu lahayn, waxaad samayn kartaa barcode kuu gaara ayaad soo daabacanaysaa, kadibna waad ku dhajisanaysaa shaygaaga si hadhow toole aad halkan u gashato oo hadhow toole codekii shaygaa loo ogaado markasta. adaa u daabacanaya. hadduu shaygu barcode leeyahayna wuu leeyahay oo radio kiisaad u isticmaalaysaa. marka kadib waxyaalahan khaanadahan badan hadba kaad u baahan tahay haddii aanu jirin waad iska dayn kartaa, in badan waad ka boodi kartaa, laakiinse inta muhiimka ayaan tusayaa ee aadka loogu baahan yahay. tusaale ahaan brand haddaad maqasho waxa weeyaan waa shirkadda tusaale ahaan alaabtan le waa magaceed. brandiska waad ku dari kartaa tusaale ahaan. marka brand waad ku dari kartaa shirkadda soo saarta, halkaa yaree balasta ku taalo ayaad samayn kartaa. brand macnaheedu waxa weeyaan tusaale ahaan caanaha maraaci weyn ama alyaman baa la yidhahaa caanaha tusaale ahaan oo kale shirkadda soo saarta alyaman tusaale ahaan. marka alyaman marka tusaale ahaan waa shirkadda soo saarta caanahan oo kale, laakiin waad iska dayn kartaa haddaad doontid, kuma qoraysid. laakiin brand name waa alyaman, shirkadaasaa soo saartay caanihii oo kale. hadba shirkadda soo saartay shaygan aad iibinayso ayaad brand meesha ay ku qorantahay aad gelinaysaa, laakiin waad ka boodi kartaa haddaad rabto, lagugu qasbi maayo. laakiin ta muhiimka waxa weeyaan shaygan halkan unit ay ku qoran tahay waa required, mar walba waa loo baahanyay, kama boodi kartid. categorigaad kadibna dooranaysaa. cabitaano ayay hoos imanayaan caanuhu. cabitaanada markaad hoos timaado alert quantity, markay tusaale ahaan alaabtu kaasii go-ayso in alert ay samayso, lagu ogeysiiyo oo inay alaabtii gabaabsi kaasii tahay, goormaa lagu ogeysiinayaa. imise xaba markay yaalaan, tusaale ahaan 10 xaba markay kasii yaalaan ama 10 shay markay kasii yaalo ayaa tusaale ahaan oranaysaa iisii sheega. markaa kadibna waa ka. marka laakiin markasta halkan aad halkan markaad caanaha shayga qorayso waa inaad sii raacaysaa. tusaale ahaan ma bogos baa caanuhu, ma dersin baa, mise waa xabad xabad. waa xabad baad leedahay xaggan, xabad 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 xabad. marka waa ka. ama hal baad raacinaysaa, raacinaysaa. tusaale ahaan oo kale shaygii inuu dersin yahay oo kale iyo in si loo kala garto iyo inuu yahay dee iyo inuu yahay xabad xabad dee shay furfuran oo yaryar. marka xabad markaad halkaa raacsato kadibna maxaad leedahay cabitaanuu hoos imanaya categorigii shayga. sharaxaad haddaad ka bixinayso waad ka boodi kartaa haddaad doonto, haddaad ka bixinaysa laakiin sharaxaad ama faahfaahin product description meesha ay ku qorantaad ku qoraysaa wixii faahfaahina. shaygan aad iibinayso sawirkiisa ama sawirkiisa haddaad rabto inaad soo geliso waa inaad halkaa browse ku taalo taabato oo shayga sawirkiisa aad soo gelisaa kadibna oo kusoo upload garaysaa. browse baad taabanaysaa shayga sawirkiisa. markaasaad arkayso caanihii yamaniga ahaa sawirkoodii ayaan soo gelinayaa. caanaha sawirkoogii waa kan, waan soo select garaynayaa, kadibna wakaa sawirkii shayga la iibinayo saasaan usoo geli. marka waa saas oo kale sawirkii shaygii aan iibinayay waan soo geliyey. kadibna hoos baan usoo daadegayaa. haddii shaygani miisaan leeyahay ama culays uu yahay, hadduu hilib yahay oo kale, wixii hilib iyo waxaa ku saabsan weightkiisa oo kale aad gelinaysaa halkan, ama miisaankiisa ama culayskiisa oo kale. laakiin waxaanaynu iibinaa hilib maaha, laakiinse waxa weeyaan waa caano weeyaan. wax kale kama bedelaysid, meel kale ma taataabanaysid. intaa kadib waxaad samaynaysaa cashuurta. imika wax cashuuro oo systemkeenan uu leeyahay ma jiro. keliya waxaad gelinaysaa qiimaha lagaa soo siiyey iyo qiimaha aad ku iibinayso. laakiin cashuurta hadhow toole halkan baad ka dooranaysaa nooca cashuurta ayaad ku abalay garaynayso shayga aad iibinayso. laakiin haddaanad cashuur weli qaabka cashuurta loo sadab garaynayo muuqaal gaaraan idinka soo duubaya iyada. laakiinse imika tusaale ahaan halkan siaad ku arkayso
waxaad arkaysaa lacagtaad soo siisatay iyaad halkan gelinaysaa. lacagtaad soo siisatay khaanad, imika waxaad arkaysaa 4 khaanadood, 1 2 3 4. tani waxay sheegaysaa waxaad gelinaysaa lacagtii lagaa soo siiyey. tusaalahaan caanahaasi waxay igu taagan yihiin $1 bay igu taagan yihiin. tusaalahaan xabadaasi $1 bay igu taagan tahay. halkani marka cashuurta lagu daro ayay sheegaysaa. imika tusaalahaan cashuurtii marka lagu daro $1 unbay isla tahay, waayo systemkayga cashuur lagama qaadayo, cashuur kumaan darin. marka hadhow toole haddaba maxaan faa'iidayaa, halkan ayaad gelinaysaa waxaad qiimahaad ku iibinayso. qiimaha aad ku iibinayso mar walba waa inaad gelisaa halkan. tusaale ahaan qiimaha aad ku iibinaysaa waxa uu noqonayaa tusaale ahaan $1 iyo badh baad ku iibinaysaa. tusaale ahaan 1.5 dhibici baa halkaa udhaxaysa, 1.50 $1 iyo badh saasaad u gelinaysaa. kadibna saasaad oranaysaa. marka waa saasoo kale ayay kugu soo baxaysaa xisaabtu. marka boqolkiiba 50 baad faa'iidaysaa. $1 baa lagaa soo siiyey, $1 iyo badh baad haddaba halkan gelinaysaa, eges ay ku qoran tahay. kadib maxaad faa'iiday boqolkiiba 50. laakiinse sida caadiga halkaa tirada taalla mar walba ku xisaabtamin. markaad $1 halkan geliso, halkan waa inaad gelisaa haddana lacagtaad siinayso shaygii aad iibinaysay. shaygaad iibinaysay lacagtaad siinayso waa inaad halkaa gelisaa mar kasta. halkana maxaad gelinaysaa lacagtii lagaa soo siiyey ee raasamaalkii uu kugu taagnaa shayga aad iibinaysaa. intaa kadib maxaa aad samaynaysaa, halkan hoose ee ay ku taalo halkeere hoose safe ku taalo, 3 safe baa meesha yaala. taasaad taabanaysaa, kuwan kale ma taabanaysid. taasaad taabanaysaa safe and add opening stock. waanaad safe garaynaysaa alaabta aad soo iibsatay ee cusub, ama shayga aad productiga aad samaysay. waxaanaad ku daraysaa kaydkaaga furan, kaydkaaga caadiga ee alaabta kuu taalo ayaanaad ku daraysaa. marka maxaad leedahay safe and add opening stock baad taabanaysaa meeshay ku qoran tahay. kadibna maxaa kuu soo baxaya, aad sugaysaa boggan baa kuu soo baxaya. boggani markuu kuu soo baxo, boggan waxaad ku arkaysaa caano. shayga magaciisu waahay waa caano xabad, waa midh xabad oo xabad maaha dersin, waa xabad. caanaha tirada inta xabee kaaga taalla waa imisa. haddii aad tusaale ahaan tirooyin ku xisaabtamayso, inta tiro ee kaaga taala, tusaale ahaan 100 dersin baa ku yaala. 100kii dersinkiiba tusaale ahaan waxaa ku jira 10 xabo. 10kii xabe dersinkii maadaamay kuugu jireen, inta xabee kuu taala ama inta midhe caana ah ee kuu taala ayaa markaaba halkan kaaga soo baxaysa oo aad gelinaysaa. tusaale ahaan 130 xabo oo caanabaa i yaala. marka tusaale ahaan unitka unit cost before tax, qiimaha aad xabadii siinayso marka aan la cashuurin waa $1. waxa halkaa ku yaala markaaba waxa kuu soo baxaya markaaba xisaabta inta aad ka faa'iidayso caanahan. 130 xabaa ku yaala, waxaanaad siinaysaa $1 xabadii. maxay noqonaysaa waxa lagaa soo siiyey baan sheegaya, waa raasamaalkii baa akhriyaysaa. unit cost before tax waa raasamaalkaagii bay kuu sheegaysaa. $1 ayaan soo siistay, $130 oo lacaga ayaa igaga jira caanahan aan soo iibsaday. marka waa kaa 130 xabaa ii yaala oo caanaa, waa quantity-gii ii yaalay. waa qiimaha igu taagan yihiin. $130 bay igu taagan yihiin 130 xabo ee caanaha. xabadiina mise igu joogtaa $1. waa intaa. kadib intaa markaad samayso safe baad leedahay, safe. intaa kadib maxaynu kusoo darnay product list productskin tagayna. tusaale ahaan hadda productigeena waxa inoogu jira caanaha inoogu jira. caanahaasaa inoogu soo biiray saad arkayso. caanaha halkaa yaala ayaa inoogu soo biiray, waa caano. markaasaad arkayso caanaha weeyaan 130 xabadood bay ka kooban yihiin. waxaan ku iibinayaa ama aan siinayaa $1.5 baan siinayaa. waxaana soo siistay $1. waka shirkadda iibinaysa waa Dacar Shopping. wakaas saasoo kale weeyaan. marka intaa kadib maxaan samaynayaa, imika product baan sameeyey. product ayaan sameeyey ama item ama waxaan kusoo daray alaab cusub ayaan kaydkaygii kusoo daray. marka intaa waad ila fahanteen. xiisadani halkaasay noogu joogi doontaa tan iyo intaan ku kulmi doono xiisadahan xiga. aad baa mahadsantihiin.